kusoo dhawaada Higgs Technology. aad ay u mahadsantahay sida aad u soo daawatay labadii cashir ee hore. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka soo faa'iiday oo aana soo fahantay qaabka loo sameeyo logo adigoo isticmaalaya xarfo. bal kana sii daawo waxa uu aad kaaga caawin doonaa in aad sidii la mid ah aad u sii fahantid. xarafkan wuxuu ka kooban tahay A iyo R. A iyo R ay ka kooban tahay midba waxbaa laga jaray kadibna oo la soo keenay. si aad u sameyso logadaas waxaad sii kartaa halkan text. haddii aad su'aal ka qabta casharadii hore, please waxaad iigu soo diri kartaa commentiga ama waxaad iigu soo diri kartaa ciwaanka kaaga muuqdo shaashada ee Instagram-ka ah. halkaas iga soo raac kadibna su'aalaha isoo weydii, mar walbana waa kaaga jawaabi doonaa insha Allah. halkan waxaa iga muuqda R iyo A. R farta aad isticmaalayo wax micno badan ma soo suurtagelinayso, laakiin waxa ay muhiim u tahay in aan raaco hadda design-kan aan hore u sameeyay ee meesha yaalo. okay, R ayaa sidaa u sameeyay. waan soo weyneynayaa. markaan sidaa usoo weyneeyo halkan ayaa keensanayaa, right click ayaa ku kor leeyahay, create outline ayaa leeyahay, kadib right click ayaa ku kor leeyahay, ungroup ayaa leeyahay. waxaan rabaa inaad sida ugu fudud ee wax ku sameyn kartiin aad u sameeyo insha Allah. kadib paint toolka ayaan tegayaa, angle-kaas arta meesha angle 90 ka ah korkeeda ayaa tegayaa, waa soo dooranayaa, kadib angle 90 gudaha ayaa imaanayaa. kadib sidaas ayaa usoo qaadanayaa, waxaan jarayaa arta qaybtan kale baa ka jarayaa, intaan kalena sidaas ayaa u heelad garanayaa, kadib waa isu keenayaa. wax yar hadaa ka baqo geeskan ayaa waxaan ka baqayaa inay wax yar meeshaas iga soo raacaan, oo marka angle-kan ayaa dib u celinayaa. okay, kadib waxaa sameynayaa, waxaan isku highlight garanayaa shape-ka hadda aan sameeyey iyo arc. kadib waxaan tegayaa pathfinder-kayga oo wax badan aan kaga soo sharaxay labada cashir hore. kadibna waxaan tegayaa meeshan ay ku qoran tahay minimize font. waxaa ii soo hartay arti qaybna way baxday. mar kale ayaa halkan imaanayaa, eyda ayaan rabaa qaybna inaan ka saaro, ayadana sidoo kale halkan ayaa tegayaa, sidoo kale ayaa u sameynayaa shape ayaa meeshan ku sawiraya aan ku jari karo eyda qaybta hoose. shape-ka sidaas ayaa u sawiraysaa. kadib waxaan sameynayaa sidoo kale ayaa highlight wada saarayaa labadooda, kadibna minimize font ayaa leeyahay. eyda qaybta hoose way ka baxday, artina qaybtan ayaa ka baxday. kadib waxaa sameynayaa, waa isku soo dhaweynayaa. markaa sidaa iskugu soo dhaweeyo waxaa isticmaalayaa direct selection tool. waxaan isticmaalayaa qaybtan kore ee arta meesheeda ugu hooseysa ayaa kali ku siinayaa, kadib falaarta anoo isticmaalayaa sidaas ugu dhaweynayaa. mar kale ayaa inta ayadana sidoo kale ka isticmaalayaa, waana ku dhaweynayaa. okay, kadib halkan ayaa imaanaya, ayadana sidoo kale intii oo kale ayaa sameynayaa, waa dhaweynayaa. tan ayaan sidoo kale isticmaalayaa arta, ayada kalena sidoo kale u dhaweynayaa. okay, kadib waxaa sameynayaa shape aan halkan ku abuurayo oo triangle ah, anigoo ilaalinayo halkan oo ah isku aadka eeda iyo eeda kale ayaa halkan ka sameynayaa shape. shape waxaa ku isticmaalayaa inaan sameeyo paint tool. sidaas ayaa u sameeyey, kadib geeskan ayaa ku dhifta anoo dhinaca u dhaweynayo. okay, kadib waxaa sameynayaa eeda ayaa ku dhufanayaa, colorka ayaa ka bedelayaa. miyaynan ahayn isla ayadii oo kale? waxaa laga yaabaa in kala fogaanshaha aad arkaysaan, laakiin kala fogaanshaha wax dhib badan maahan. haddii aan isku dhaweeyo zaid waxaan diidayaa inaad adinka arki weysaan, laakiin haddii tan kale aan soo dhaweeyo hadda zoomka sidaan oo kale ayay noqon doontaa. waxaan rajeynayaa inaa cashirkaana ka faa'iiday. fadlan subscribe channelka saar. waxaan rajeynayaa cashiradan haddaa ka faa'iida, cashirada soo socdaan inaad ka faa'iidi doontid. haddii aad su'aal qabtana nagala soo xiriir dhanka commentiga
amase ciwaanka shaashada kaaga muuqda ee Instagram-ka ah ayaad iga soo raaci kartaa anigoo ah Maxamed Xirsi.